الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو وزير وزير دولياش وزير كحجينة تليها عيدن كبوليسكا سراكيشا سراكيل حجينة دبليدا iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay xafladda tan sanad guurada 78aad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. marka hore waxaan u hambalyeeyaa ciidanka booliska Soomaaliyeed sanad guuradoodii 78aad ee ka soo wareegtay asaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed. dhammaan ciidanka booliska iyo eheladooda waxaan leeyahay waxaad mudan tihiin in la idin hambaliyeeyo. waxaan idin rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo iyo sanadkan sanadkiisa inaad ku gaartaan. muddadaas dheer ee 78 sano ah waddanka wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo loo baahnaa amni ahaan in la maareeyo. waxaan aaminsanahay ciidanka booliska Soomaaliyeed muddadaasi wuxuu ku guulaystay intikiraankiisa inuu badbaadiyo qaranka Soomaaliyeed. sugidda amniga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, ilaalinta nolosha iyo hantida, amniga iyo nabadgelyada muwaadinka Soomaaliyeed iyo dadka kale oo degan jamhuuriyadda federaalka, dhaqangelinta dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taalla, dhaqangelinta heshiisyada caalamiga ah ee Soomaaliya qaybta ay ka tahay waxay ka mid yihiin waajibaadka ciidanka booliska Soomaaliyeed. haddii aan la dhaqangelin shuruucda dalka lama badbaadin karo dadka iyo dalkaba. dhaqangelinta dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka iyo shuruucda kale oo caalamiga waxay la mid tahay adoo badbaadiyey dalka. waxaan aaminsanahay inay tahay dariiqada lagu badbaadin karo dadka inay tahay shuruucda in la dhaqangeliyo. waxaan rabaa in kelmadda yar aan ka yiraahdo dhinaca doorashooyinka. waxaan filayaa waxaan ku jirnaa doorashooyinkii. waxaa laga soo gudbay oo la doortay aqalkii sare ee baarlamaanka oo xubnihiisa ay ka kooban yihiin 54 senator. bishii November oo kowdeedii aan soo dhaafnay waxaa la doortay xildhibaankii ugu horreeyay oo golaha shacabka. maanta waxaan joognaa 25kii December. tirada guud ee golaha shacabka oo la doortay waa 24 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka, taasoo ka dhigaysa tirada guud markaa fiirisaan 275 xildhibaan boqolkiiba 9 wax ka yar. waxaan aaminsanahay 55 maalmood 30 maalmood oo bishii November iyo 25 maalmood oo bisha December marka la isku daro oo 55 maalmood haddii lagu doortay 24 xildhibaan oo golaha shacabka baarlamaanka ka mid ah, maxaan filan karnaa tirada hartay ay tahay 251 xildhibaan. doorashadoo la dedejiya waxay muhiim u tahay amniga dalka, waxay muhiim u tahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga, waxay muhiim u tahay nolosha guud ee shacabka Soomaaliyeed. waxaan u soo jeedinaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka oo mas'uuliyadda doorashada dadban qaatay inay waddankan ka badbaadiyaan wixii hadda ka dambeeya in dib u dhac uu ku yimaado doorashada.
sida aad la socotaan labaatan iyo lixdii bishii sagaalaad 2011 baarlamaanka wuxuu ansixiyey heshiiskii siyaasadeed ee 17 September. heshiiskaas haddaad akhriseen waxaa ku qoran heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashooyinka ama doorashada baarlamaanka federaalka ee 2020 ayaa ku qoran. heshiiskaas siyaasadeed oo baarlamaanku uu ansixiyey oo madaxweynaha uu ku soo saaray sharci number 30 oo uu ku ogolaaday in heshiiskaas siyaasadeed uu noqdo heshiis lagu aado doorashada, waxaa ku qornayd inuu ku eg yahay 2020 waxaan rabnaa inay ku buraaragaan dadka u xilsaaran doorashada. waxaan aaminsanahay muddada hartay bishan December ka hartay aaday muhiim u tahay. waxaan aaminsanahay sharciga waa la socoteen annaga markaa akhrisaan sharciga 17 September qodobka 3aad wuxuu ka hadlayaa ilaalinta firaaq dastuuriya iyo waddanka uu ka dhaco, taa markaa sababi karta in hay'adihii dastuuriga qaar ka mida ay dumaan. waddan jira oo calankiisii United Nationska uu suran yahay in hay'adihiisii dastuuriga ahaa oo siyaadada waddanka hayay ayadoon kuwa kala bedelin meesha ay ka baxaan waa ka taxdirnay. waxaan soo saarnay sharcigii lagu ilaalin lahaa, waxaana la bedelay hore loo bedelay qodob ka mid ah qodobada dastuurka. sharci number 30 wuu sii jiri doonaa ilaa baarlamaanka 11aad laga dhaariyo. aadaan ugu faraxsanahay in ilaa hadda ilaahay uu nagu badbaadiyey. dadaalka annaga keliya ma ahana ilaah uuna badbaadiyey. aad iyo aad u mahadsantiin.